Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan daawadayaashan waxaad ku soo dhawaataan warbixin kooban oo ku saabsan shirkadda Facebook iyo cidda aasaastay. Wuxuu ahaa wiil aan ku fiicnayn isdhexgalka bulshada, xirxirnaansho badanna lagu tuhmi jiray, laakiin wuxuu aqoon u lahaa kombiyuutarka. Isagoo jaamacadda dhigta oo ku dhex jira waxbarashada, ayuu wuxuu go'aansaday inuu sameeyo bog ay ku kulmaan ardayda jaamacadda oo ugu magac daray FaceMesh. Kadib wuxuu fahmay inay wadaagi karaan dhammaan dadweynaha dunida ku nool oo dhan. Kadib ballaarin ayuu ku sameeyey, wuxuuna ku magacaabay Facebook, waxaana ku xirmay malaayiin qof. Haddaba waa kee kaasi? Waa Mark Zuckerberg. Wuxuu dhashay May 14 sanadii 1984. Wuxuu ku dhashay magaalada New York ee dalkaasi Mareykanka. Da'diisu haatan waa 36 sano jir, waana soo saaraha ama sameeyaha shirkadda Facebook. Waxaa shirkadda Facebook la aasaasay 4 Febraayo 2004. Markii uu sameynayay shirkadda Facebook, da'diisu waxay ahayd 20-yada. Maadaama da'diisu ay aad u yar tahay, shirkado badan ayaa damcay inay ka iibsadaan, laakiin waa uu ka diiday. Sababtoo ah wuxuu aaminsanaa inay aaladdan ka qiimo badan tahay qiimaha ay ku doonayaan shirkadahaasi. Mark Zuckerberg 2018 wuxuu noqday ninka shanaad ee ugu taajirsan dunida. Haatan Mark Zuckerberg wuxuu leeyahay shirkado badan sida shirkadda Instagram, WhatsApp iyo Facebook. Shirkadda Facebook maanta waxaa laga yaqaanaa dunida oo dhan, waxaana laga isticmaalaa waddamada caalamka oo idil. Isticmaalayaasha shirkadda Facebook waxay gaarayaan balaayiin qof. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay, subscribe saar, ugu subscribe kuna dar gambaleelka si uu kugu soo dhaco muuqaal walba oo soo dhigo.